السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركة لسود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ومالنتي وجودا بيسي سلطة. باي باي 2025 أيان لنا هاي ويلكم أيان لنا هاي 2026 سنة وناك سنة أيان دلله هاي وقال كان ما أنت وحربين ندي كل وذاقه وزارة عافمات كأي شلي وحي كل واقضي إن جبي أهم بالعجه للسين دري دي كرادة الصومالي ده gobolka Minnesota ama dhammaanba dheekeerada gobolka Minnesota lacagihii laga joojinayo shuruudo ayayna soo bandhigeen loo baahan yahay in ay ka soo baxaan haddii lacagahaasi la doonayo in loo soo fasaxo sidoo kalena waxaa jirta in gudoomiyaha gobolka waraaq loo diray gobolka Minnesota isla markaana sidoo kalena la furay email iyo telephone dadku cabashadooda ay ku soo gudbin karaan madaxweyne Trump oo markii ugu horeysay arrimahan musuqmaasuqa ka soo hadlay kadib markii wiilkii cadaanka ah ee cunsuriga ahaa muuqaaladii uu soo duubay ay viral noqdeen oo guud ahaan caalamka ay gaareen Nick Charlina maanta mar kale ayuu Minnesota dib ugu laabtay markan maadaama uu caan noqday security xoogan ayuu watay rag xoogan ayaa gadaashiisa taagnaa isagoo Soomaali la hadlayana waan idin la wadaagaya Trump wuxuu arrimahaasi ka yiri sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada markii wiilkii cadaanka ee cunsuriga ahaa toddobaadkii hore uu tagay gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis oo dheekeera Soomaali ah oo waqtigii la furi lahaa ka hor inta uu tagay muuqaalo uu ka soo duubay uu yiri bal arka lacaga malaayiin dollar ayay carruur ku qaadanayaan waana faaruq meeshan waxba ma joogaan oo carruur ma joogaan ayaa muuqaaladaasina ay guud ahaan caalamka ay gaareen ayaa shalay waxa arintaasi jawaab ka bixiyay wasaaradda caafimaadka lacagaha iyada ayaa gobolka siisa kadibna gobolku waxa uu siiyaa dheekeerada ama meelaha carruurta xilliga maalintii ah lagu hayo marka shalay waxaa shir jaraa'id qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo la yiraahdo Jim O'Neill iyo sidoo kalena Alex Adams oo isaguna ku-xigeen ah waaxda wasaaradda caafimaadka u qaabilsan carruurta iyo qoysaska ayaa shir jaraa'id qabtay shirkooda jaraa'id waxa ay ku dhawaaqeen tillaabooyin dhowr ah oo ay qaadayaan tillaabooyinkaasi ayaan idin la wadaagaya waxa ay sheegeen marka hore in ay joojiyeen dhammaanba lacagihii la siin jiray goobaha carruurta lagu hayo ee dheekeerada gobolka Minnesota waxa ay sheegeen in ay aqriyeen arrimo amaba eedeymo khatar ah oo la xiriira in gobolka Minnesota lacaga malaayiin dollar oo kuwii canshuur bixiyaasha ah oo si sharci darro ah ku siinayay dheekeerada guud ahaan gobolka Minnesota 10kii sano ee la soo dhaafay marka waxay yiraahdeen maanta waxaan qaadaynaa 3 tillaabo oo kala duwan oo aan doonayno inaan kaga hortagno musuqmaasuqan cad oo u muuqda inuu yahay mid ku baahay guud ahaan gobolka Minnesota iyo guud ahaan wadankaba marka arintan wadanka oo idil ayaa lacagahan la joojiyay dheekeerka ay saameynaysaa gaar ahaan laakiin si gaar ah gobolka Minnesota ayaa loogu bartilmaameedsanaya midda koobaad waxay tahay waxay yiraahdeen waxaan howlgelinay systemkeena ah istifaacidda iyo waliba lacag bixinta dhammaanba ACF paymentiga waa Administration of Children and Familieska lacagihii la siin jiray waan joojinay laga bilaabo maanta waxaana hadda kadib looga baahan yahay dhammaanba goobaha dheekeerada ee carruurta lagu hayo ee guud ahaan wadanka in marka ay doonayaan lacag in la siiyo oo adeeg ay qabteen lacagtoodii la siiyo in ay soo bandhigaan marmarsiyo amaba rasiid amaba caddayn sawir carruurta goobta ku joogta sawiradooda ayaa laga rabi doonaa imise carruur ah ayaa goobta joogto oo adeeg aad ku siisaa ayaa lagaaga rabi doonaa ka hor inta aanan lacag u dirin gobol kasta waxaan uga baahannahay arrimahaasi oo idil rasiid amaba caddayn sawir amaba waxyaabo kaloo caddaynaya oo lacagtaasi lagu siin karo gobolka Minnesota oo kaliya waxaa laga joojiyay 185 milyan oo dollar waxaana la siin jiray dheekeerada guud ahaan gobolka Minnesota ilaa iyo 19,000 oo carruur ka badan ayaana dheekeeradaasi la geyn jiray midda labaad Alex Adams oo isagu ku-xigeenka ah waaxda wasaaradda caafimaadka u qaabilsan dhinaca carruurta iyo qoysaska ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay shiraan shakhsiyaad ka muuqanayay videogii ninkan la yiraahdo Nick Charlie uu soo duubay kuwaas uu sheegay inuu shaqo wanaagsan qabtay marka wuxuu yiri waxaan ka dalbanaynaa gudoomiyaha gobolka Minnesota in baaritaan buuxa uu ku sameeyo dhammaanba xarumahaasi uu ninkaasi wariyaha uu soo duubay waxaana kamid ah waxyaabaha looga baahan yahay in ay sheegaan
inta caruur ah ee maalin kasta imaanaysay xarumahaas wiilkan videoga uu ku soo duubay iyo sidoo kale in ay laysin haystaan oo gobolka uu siiyey ay ku shaqaysan karaan si sharciya iyo in aysan laysin haysan iyo sidoo kalena haddii ay jiraan cabashooyin laga gudbiyey xarumahaasi amaba ay jiraan baaritaano lagu sameeyey ama sidoo kale inspection waxaa la yidhahdaa waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan caruurta dhalinyarada iyo qoysaska waxa ay ku tagaan goobahaasi iyagoo aan sii sheegin ay tagaan marka arrimaha caafimaadka ayay eegaan waa sidee nadaafadu meelaha caruurta ay ku ciyaarayaan waa sidee meelaha la jiifinayo waa sidee cuntada la siinayo biyaha la siinayo waxyaabahaas oo idil ayaa inspection baaritaan lagu sameeyaa marka baaritaanadii ugu dambeeyay oo lagu sameeyey waxyaabaha ka soo baxa ayaan doonaynaa inaan ogaano ayay leedahay wasaaradda caafimaadka ugu dambeyntii qodobka saddexaad waxay yidhahdeen waxaan bilownay amaba aan shaaca ka qaadnay in uu jiro telephone si toos ah qofku ula soo xiriiri karo haddii uu arko waxyaabo musuqmaasuq oo la xiriira iyo waliba email address waxaadna ka heli kartaa website-ka la yiraahdo childcare.gov ayaad ka heli kartaa haddii aad waali tahay amaba haddii aad tahay provider oo ah sida Medicaid-ka oo kale dadka lacagaha siiya daykeeradaasi loo soo marsiiyo amaba aad tahay qof ka mid ah shacabka waxaan doonaynaa bal inaan ku maqalno marka hadda dadkii ayaaba la leeyahay soo report gareeya marka kolay telefoona badan iyo email badan waa ay gaari doonaan dad badan oo Soomaalida nacab ayaa jira marka waxay leeyihiin lacagtii waan joojinay waxana hadda aan helaynaa musuqmaasuq marka labadan xubnood oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo la yiraahdo Jim O'Neill iyo sidoo kalena Alex Adams oo isaguna ku-xigeenka waaxda wasaaradda caafimaadka u qaabilsan qoysaska iyo waliba caruurta hadalkoodii shalay arintan ayaa ka mid ahayd bal ila daawada. I'm HHS Deputy Secretary Jim O'Neill. I'm here with Assistant Secretary Alex Adams. Alex oversees the Administration for Children and Families. Intrepid journalists have made shocking and credible allegations of extensive fraud in Minnesota's child care programs. We believe the state of Minnesota has allowed scammers and fake daycares to siphon millions of taxpayer dollars over the past decade. My office, ACF, provides Minnesota $185 million in child care funds each year. That money should be helping 19,000 American children, including toddlers and infants. Any dollar stolen by fraudsters is stolen from those children. Yesterday, I spoke directly with the director of the Minnesota Child Care Services Office. She could not tell me with confidence whether those allegations of fraud are isolated or whether there's fraud stretching statewide. Today, we have taken 3 direct actions against the blatant fraud that seems to be rampant in Minnesota. First, I have activated our Defend the Spend system for all ACF child care payments across America. Starting today, we require a justification, receipt, or photo evidence before we make a payment. Second, I have just signed and sent a demand letter to Governor Walz. I required a full 360 review of these centers. This includes attendance records, licenses, complaints, investigations, and inspections. And third, we've launched a dedicated fraud reporting hotline and email address at childcare.gov. Whether you're a parent, a provider, a member of the public, we want to hear from you. Let me be crystal clear. ACF expects every state to uphold the highest standards of oversight, monitoring, and accountability for federal dollars. Minnesota is no exception. We're committed to holding bad actors accountable. Regardless of rank or office, anyone who's involved in perpetrating this fraud against the American people should expect to be prosecuted to the fullest extent of the law. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa isaguna qoraal kooban oo bartiisa X uu ku soo qoray ayaa waxa uu kaga jawaabay joojintii wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ay joojisay lacagihii la siin jiray daykeerada gobolka Minnesota. qoraalkan kooban waxa uu ku yiri gudoomiyaha gobolka Minnesota arintan waxa ay tahay gamekii uu ciyaarayay madaxweyne Donald Trump. waxa uu yiri muddo sanadaha ayaan waxaan ku bixinay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waliba arrimo kale oo qatar ah laakiin waxa uu yiri arintan markastaba waxa ay ahayd qorshaha madaxweyne Trump uu damacsanaa waxa uu siyaasadeynayaa arrimo loo baahan yahay barnaamijyo in la maalgeliyo kuwaasi oo dadka reer Minnesota lagu caawinayo marka madaxweyne Trump waxa uu leeyahay ba arintan mar hore ayuuba damacsanaaba qorshihiisa ay ahayd marka wax cusub ma ahan ayuu leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota. sidoo kale waxaa jirta in habeen hore loo soo dhacay daycare Soomaali ay leeyihiin oo la yiraahdo Nokomis Daycare Center oo ku yaala Minneapolis qaybta gadaala ayaa laga soo galay
burbur xoogan ayaa ka muuqday gudaha ayaa loo galay ilaa hadda wax laga qaatayna lama sheegin mid ka mid ah maamulayaasha daycarekaasi oo la yiraahdo Nasrullahi Muhammad ayaa shir jaraa'id qabtay iyadoo qaar ka mid ah bulshaduna ay garabkooda taagnaayeen garab istaagna ay u muujinayeen markii hore waxaa la dhahayay Soomaalidu lacag ay xadaan daycareradii haddana waxaa la bilaabay in goobahoodiiba loo dhaco oo la burburiyo sida aad ka aragtaan sawiradan qaybta gadaal ayaa laga soo galay derbiga ayaa la soo duleeliyay gudaha ayaana loo soo galay kulay waa daycare meesha lacag ma taalo laakiin dokumentiya laga qaatay kulay ilaa hadda faahfaahin dheeraada laga mahayo waxaana qofkii nadiifinaya oo subaxii kusoo kalahay ayaa markii qofkii nadiifinaya oo subaxdii kusoo kalahay ayaa waxa uu arkay in daycareka loo soo dhacay oo gadaal qaybta dambe la soo burburiyay sidaas ayaana maamulayaashii mid ka mid ah uu ku wacay marka arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordho waan arki doonaa haddii aan leedmo dhinaca kale dad ku dhaqan magaalada Seattle ee gobolka Washington State ayaa sidoo kale shalay la soo xiriiray waxay leeyihiin daycareradii Soomaalida sidoo kale dad cadaan ah oo sidii Nick Shadley oo kale cunsuriyiin ah ayaa waxay bilaabeen inay imaadaan daycareradii hortooda oo muuqaalo ay ka duubaan oo yiraahdaan musuqmaasuqa sameeynaysan lacag xadaysaan xitaa intay soo urursadaan ay mudaharaadyo ku horsameeyaan marka arrintan waxay u muuqanaysaa inay tahay mid dadka Soomaalida ah gaar ahaan lagu bartilmaameysanayo oo la leeyahay musuqmaasuq ay guud ahaan wadanka ay ka wadaan arrintaasina dad ayaan ka wareysan doonaa insha Allah haddii ay suura gasho waan idin soo gudbin doonaa arrintan ka dhacday Seattle oo gobolka Washington State oo ah magaalada saddexaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin wadankan Mareykanka dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka soo hadlay arrintan musuqmaasuqa maanta ayuuna bartiisa True Social qoraaladan ku soo qoray waxa uu yiri musuqmaasuq ballaaran ayaa ka jiro gobolka Minnesota ayuu yiri waxaana uu gaarayaa ku dhawaad 90% waxaana sababaya ayuu yiri musuqmaasuqaasi dad inta badan wadankeena yimid waxa uu leeyahay dadka Soomaalida ayuu ula jeedaa dadka wadanka aan ku dhalan oo wadanka soo galooti ahaan ku yimid ama qaxooti ahaan ayuu ula jeedaa marka dad wadankeena yimid ayaa sabab u ah musuqmaasuqaasi ayuu yiri waxaana ay ku yimaadeen ayuu yiri si sharci darro ah ayay uga yimaadeen waliba Soomaaliya xitaa wuxuu leeyahay Soomaalidu si sharci darro ah ay dhamaantoodba ay Mareykanka ku imaadeen marka waxa uu leeyahay xitaa xildhibaanada la yiraahdo Omar oo iyadu aanba u mahad celinaynin ayuu yiri wadankan in ay ka cabato mooyaane wiligeedna aan waxba ku soo kordhinin ayaa waxa ay ka mid tahay ayuu yiri qaar ka mid ah dadka wax qiyaamaya marka waxa uu sheegay horta ma runba inay walaalkeed guursatayna su'aal ayuu ka dhigay marka waxa uu sheegay dadka noloshoodu hooseyso sida Ilhaan oo kale ayuu ula jeedaa waxa uu yiri wadankeena ay dhibaato ku yihiin ayuu yiri weynaantiisa sidaas darteed waxa uu yiri wadankoodii dib ha loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen ee Soomaaliya dib ha loogu celiyo wadankooduna waa midka ugu xun ayuu yiri uguna musuqmaasuq badan wadamada caalamka ku yaala marka Make America Great Again waa uu ku soo gabagabay marka halkaas qoraal oo kaliya ma uusan soo qorin waxa uu sidoo kale weeraray gobolka California oo isaga gudoomiyaha gobolkaasi Gavin Newsom iyo isagaba xurguf ayaa muddo ka dhaxaysay marka waxa uu leeyahay musuqmaasuq ka ballaaran midka Minnesota waxa uu ka jira ayuu leeyahay gobolka California waxaana sidoo kale suuragal ah ayuu yiri in xitaa musuqmaasuq dhinaca doorashooyinka uu ka jiro marka hadda wuxuu yiri labadaasi arrin ee musuqmaasuqa dhinaca doorashada iyo musuqmaasuq kale gobolka California ka jira waa isku xiran yihiin labada gudoomiye gobol ayuuna hadda caynaya labadaasi gobol ee Minnesota iyo California wuxuu leeyahay waa kuwa qaloocan sida darteed hadana mar kale Tim Walz kaligiis ayuu hal sadar ka soo qoray hal sentence wuxuu leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waa gudoomiye qaloocan oo crooked ah ayuu yiraahdaa marka Trumpna qoraaladaasi ayaa bartiisa True Socialka uu maanta ku soo qoray marka wiilkii cadaanka ee Nick Shadley maanta waliba isagoo xaruntii quality oo ka qaldanaa qoraalka ee quality learning u qorneed laakiin quality learning ay hadda u bedeleen funaanad hoodie ah oo jaakada isagoo ku soo sawirtay walibana ku soo qoray 1800 fraud oo leeyahay numberkaas la soo xiriiro ayuu maanta haddana mar kale goobihii qaarkood uu tagay markan laakiin waxa waay ninkan caan ayuu noqdo muuqaaladiisa faaral la noqday idaacadaha dhan ayaa qaatay caalamka waxa uu watay security rag xoogan ayaa markan gadaal ka taagna waliba haddana muuqaal ayuu duubayay dad Soomaaliya iyo dad kale ayaa sidoo kale goobta joogay oo la hadlayay marka waxa uu dhahayay haweeneyda madaxda ka ah waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan caruurta dhalinyarada iyo qoysaska waxa ay tiri meeshan waa ay xiran tahay laakiin haddana waa idin furan tahay maxaa dhacay bal isagoo dhahaya oo dadkii la hadlaya laakiin markan security wata isaga iyo ninkii cadaanka ah ee odogaha ee muuqaalada la duubay markii ugu dambeysay David ayaa wada socday
funaanadahan ayayna soo gashteen oo ay ku qoran tahay daycarekii Soomaalidu ay lahayd waliba 8 sano ayuu furan yahay daycarekaasi waxaana ku yaala Nicolette Avenue ayaan filayaa marka waa kan bal isagoo dadkii Soomaalida iyo dad kaleba la hadlay isla markaana goobta yimid security ilaa iyo 3 ilaa 4 inay yihiin aan u maleynayna ay ka dambeeyaan oo waliba ammaankiisa ay sugayaan. Department of Children, the lady, the commissioner, Kiki Brown said you guys were closed a week ago, and now you guys are open right now. This is not true what you guys are saying. I don't have anything to do with that business. This is fraud. I don't have anything to do with that business. What you got? aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.